ولله الحمد. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أنا عيدا كحوك دلالك الصوماليات سراكيشة هي سراكيل حقينة ضمان عيدا كحوك دلالك الصوماليات قيبها وكالجوان وهل كان كسوغا. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oon la qiiraysanahay oo anaga iyo mas'uuliyiintii aan ka nimidba aan qaab aan maaragtaa u qeexna aan weynin waajibaadka qaran iyo shaqada aad ka qabateen deegaanadan waxaa ilaahay mahadiisa ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinaynaa guusha uuna waafajiyey وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إن عدوغان صوماليات وعدوغ مسلمين تأه عدوغ دلك عدوغ الدين تأه أضمانتا ديغان باحدود انتا سلئك انتا تكسارتان آكب حسان إلهي سبحانه وتعالى وحادي آدلو شكريوه ثم وحاد أمهد علينا guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan unidiyadii ka qayb qaatay jihaadkan lagu nadiifinayo cadawga Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan idinkaga mahad celinaynaa dhiiranaantiina waxaan idinkaga mahad celinaynaa saa uga dhabayseen ballantii aad ka qaadeen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kadib aad ku dhaarateen in dalkan iyo diintan iyo dadkan aad maaragtay badbaadinaysaan ballantii inaad fuliseen waa idinkaga mahad celinaynaa waxaa xaqiiqa marka lagu jiro jihaad waxaa xaqiiqa marka lagu jiro halgan in rag anaga naga mid ah iyo dumar anaga naga mid ah ay shahiidayaan waxaa xaqiiqa in rag anaga naga mid ah dumar anaga naga mid ah ay dhaawacmayaan intii shahiiday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u aqbalo shahaadadooda intii dhaawacantayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u boogdayo caafimaad degdeg ah ha siiyo laakiin hal shay ogaanaysiin halkan iyo dhulkan waxa lagu soo bandhigayay meedad oo ku dhintay iyagoo shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed gumaaday waxa kala duwan in la dhinto in la shahiido yaani in qofku uu ku dhinto wada khaldan inuu qofku ku dhinto wada saxan aaday u kala balaaran yihiin aaday u kala qiimo badan yihiin ummadda qulubtooda ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala agtiisaba shuhadadeena waa la xusi doonaa qalbiyadeena ayaynu ku noolaan doonaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala mar walba oo aan salaad Ilaahay subxaanahu wa ta'ala tukanana Ilaahay baan u barin doonaa hadii Ilaahay yiraahdo waxa lana ka rabaa marka amalkaas qiimaha badan oo ummadan Soomaaliyeed aad ugu soo dhaarateen inaad ku badbaadinaysaan inuusan naga halaabin oo salaadeena iyo maaragta cibaadadeena aynan ka mashquulin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala cibaadadiisa qayb kamid ah waaye inaad ribaadkan ku jirtaan dagaalkan ku jirtaan laakiin cibaadada inteedii kalena waxa lana ka rabaa inaan ilaalino walaalayaal meeshaan aan maanta joogno maalmo ka hor cadawga ayaa dadku ku dhibaateynayay hantidooda ku boobayay diinkooda ku dhibaateynayay dumarkooda ma aragtaa ku ixtiraam darayay waayeeladooda ku baadayay oo halkaan dadku ku dhibaateynayay waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inta hartayna inuu noo fududeeyo oo dhulka Soomaaliyeed ee cadawga uu joogo laga nadiifiyo waxaan rabaa inaan halkaan baaq uga diro nin daraa soo istaagay idaacadaha oo sheegay in uu maaragtaa jihaadan oo cali dheere leeyahay cali dheere oo sawiro hore iyo fiidiyoo hore la duubay inaad keento xag iska dhig meeshaan waxa yaalo in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala diinkiisa badbaadinayso in shayaadiina oo khawaarija oo ka soo horjeeda ku diriray kuwaasaa dhafayeen u tahay haddaad adigu aad wax isku haydo fagaarayaasha imow haweenka Soomaaliyeed ilmaha Soomaaliyeed magaalooyinka ku qarxinin dadka Soomaaliyeed oo beerahooda falanaya ha baadin rag baad is haysaanay soo hor istaag
dawladda Soomaaliyeed oo maaragta ku dadaalayso inay masaakiintaas horumar gaarto inay jidad ku istaagto meelo dhigta xag iska dhig xabada maarta soo hor istaag sawiraha meelahaas ka soo galaysan iska dhaaf meeshaan ka hadlayno waa Sooman imow dhulka la soo maray adaa joogay ilmaha ka wada carareen ragga Soomaaliyeed oo dhalinyarada Soomaaliyeed ku leeynay qaar sumaysi iyo qaar maaragta bahalkiyeeso imow dadka guryaha oo ilmahooda ka soo xoogaysa iska dhaaf dad qanacsan la imow oo dagaalami karo ninkan ordaayo oo meesha ku baaba'ay dadka meesha waxaan leenahay shabaab hadday ka hadlayaan diin meeshan kamal diintoodii oo beenta ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xarfihiisa la googooyay oo ay rabaan inay dadku ku maaragta khaldaan meeshan ma taal meeshan dagaal runaya cali dheero la imow waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed inaan asagana dardaar kala aan maaragta la dardaar hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabayaasha Soomaaliyeed wiilashiina kala soo baxa meeshaas haddaynan kala soo bixin habeen walba waa barooranaysaa ha lagala soo baxo ilmaha cali dheeraha laga soo ceshto wiilashiina taleefanadooda waa haysiin ka soo ceshto maalin walba wiilkaaga oo meedkiisa waran asagoo xaqdaro ku dhintay inaa aragto kuuma wanaagsan hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan leenahay ilmaha meesha ka laga soo aabayaasha Soomaaliyeed waxaan leenahay ilmaha meesha ka soo celiyo hal nagama suurtoobayso dawladnimada iyo shaydaannimo in la isku dhex noolaato dawladda Soomaaliyeed ma aqbalayso diinta suuban oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dejiyay in laga inxiraafiyo oo wada khaldan lagu hagana dadka Soomaaliyeed waa dad muslimiina ka suuroobi mayso waa diideen mas'uuliyadan qaranka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u qaaday in cadawgaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga dulqaado iyo guudaan ciidamada qalabka sida waxaan rabnaa dagaalka ka socda gobolada dalka Soomaaliyeed guud ahaan waan bogaadinaynaa waxaan kaloo rabnaa inaan u mahad celino guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo habeen iyo maalin garab taagan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan u mahad celinaynaa waayeelada odayaasha dhaqanka ganacsatada dadka Soomaaliyeed oo hantidooda iyo aqligooda iyo xoolahoodaba ku deeqaya jihaadkan socda waan u mahad celinaynaa qof walba oo maanta taariikhdan ku darsada dhibic dhidid ah hanti ku darsada taariikhda qori doon Soomaaliya ama hal rumaysto ama yaan la rumaysanin taariikh baa qormayso oo socota buugaas qof walba oo Soomaaliyeed yaan lagaaga hormarin inaad baal dahab ka gasho ganacsatada yaan lidinkaga hormarin buugaas inaad baal dahab ka gashaan hantida aad ku bixinaysaan baada shabaab ku bixiya in shabaab maaragta la iska qaado oo la iska horleexiyo dalkan horumar lagama gaari karo hadaanan xal loo helin shabaab inuu dalkan la dhaafiyo naxariis ma jirto shabaab loo hayo shacabna uma hayo dawladna uma hayso waxaan rabnaa marka guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay sida u ogaadaan oo wiilashooda ay la soo baxaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinayaa wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u soo jeeday maalmihii la soo dhaafay kuna jiray jihaadka iyo ribaadka lagula dirirayo shacabka maaragta shabaabkan aada idinkaga mahad celinayna ogaada qof idinka dambeeyo oo dulmiga inay ka dulqaado Soomaali ay sugaysa male idinku maskaxdiina taa ku haya ayaa la rabaa in shaqada haysaan laba laabtaan warku waa idinku dheereeyay dhammaan waa idin mahad celinaa idinka iyo saraakiishiina iyo guud ahaan cid walba oo ka qayb qaadatay waxaan kaloo rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo iyagana saaxiibada naga caawiyay in aan cadawgan la dirano hanti iyo maalbigid oo saaxiibada beesha caalamka iyagana qaybta ay ka geysteen waa u mahad celinayna qof walba oo dulmigan aan iska qaadayno wax nagu daraayo oo wax nagu kordhinayna waan soo dhaweynayna dawladnimada Soomaaliyeed ma qaadi karto culays intaan la eg oo nimanka oo dibadaha laga keenay oo shabaab kale oo maaragta ajaanibta leh oo qaraxyada sameynaya oo warshadaha qaraxyada dalka ka furaya oo maaragta dadka Soomaaliyeed sida loo baabi'in lahaa diinkooda iyo sharafkooda ka shaqeynaya dawladda Soomaaliyeed yeeli mayso waxaan markii idinka rabnaa
shaqadaan hayno waa shaqo aad u muhiima goob walba oo aan joogno oo askarteenu ku sugan tahay waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin dagaalka kaliya kama socdo gobolkan Hiiraan wuxuu ka socdaa Galgaduud wuxuu ka socdaa Jubbooyinka wuxuu ka socdaa maaragta meel walba oo shabaab laga arko waa in lagu hormeedkiisa qofkii soo hanuuna oo ilaahay u soo laabta oo shacabka Soomaaliyeed afi soo weydiisan waan soo dhaweynaynaa inta ka horeyso annaga iyo shabaab waxa naga dhaxayso maarka aada u mahadsantiin salaamu alaykum wa barakaatuh waxaan salaam idinkaga sidaa aan himaamay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo safar dibadda ugu maqan iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed oo saaka intaan jidka ku soo jiray xataa aan wada hadlaynay salaanaan idinkaga sidnaa waana maaragtay idin bogaadinaya shaqada haysi salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh